بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أيها الأحبة إن شاء الله تعالى وحين كهد لدونا وحسين بحنا السنن الكونية أو السنة في القرآن أو السنن في القرآن qaabka rabbi u dejiyey dunidatan ay u kala socoto oo qof kasta oo raba inuu natiijo ama wax midho dhala uu dunida ka gaadhi kara ay ku tahay qasab inuu raaco sunnada aynu ka warramayna markaa ereyga sunna la yidhaahdo fi luga waa aariiqa aw alqaacida waa jidka ama waddada ama xeerka waxaynu leenahay waa xeerar noloshu ay raacdo waa xeerar kownka dhammaantii uu raaco waa xeerar lagu qasban yahay in la fuliyo bitacbiiri اlqur'aan haddaynu tilmaamno waa qadarka ilaahay qadarku maaha ka bini aadamka oo qura ku saabsiisan ee kownkan dhan sibaa ilaahay u qadiray inuu shaqeeyo sidaas baanu u soconayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay falan tajida lisunnati اllaahi tabdiila walan tajida lisunnati اllaahi taxwiila ilaahay qaabkuu u dejiyey dunida tan isbeddel ka heli maysid baa ilaahay leeyahy mahmaa zamanku uu socdo makaanku uu socdo saas bay ku soconaysaa hadday tahay dhismaha iyo qaabkay u dhisantay hadday tahay qawaaniinta cilmiga ee ilaahay u dejiyey iyo hadday tahay waxa bini aadamka ku saabsan xadaaraduhu siday u samaysmaan civilizationisku siday u dumaan ummaduhu siday u dhismaan siday u dumaan dadku siduu u halaagsamo siduu u badrhaadho kullaha waa qawaacid ilaahay uu inoogaga warramayo kitaabka kooban ee qur-aanka la yidhaahay rabbi soo dejiyey rabbi wuxuu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala kitaabkaa haddaynu daraasayno oo si fiican u fahamno inaynu nolosha adduun guusheeda gaadhi karno ta aakhirana guusheeda gaadhi karno laakiin inaad raacdo waxa ka horaysa inaad fahamto inaad garato waxa kane siduu u shaqeeyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ina kula shayin khalaqnaahu biqadar ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wax walba baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala shay dhammaantiiba qadar iyo jaangoyn baanu ku abuuray baa ilaahay leeyay qaab baa ilaahay u maamulay qaab buu u dhisay qaabkaas baanu u soconaya cidda waddo kale u martaa markaa ma gaadhayso hadday horumar tahay waddaa ilaahay ugu talagalay hadday dib u dhac tahay waddaa loogu talagalay cidda waddadaa qaadaa horumarka waa gaadhaysaa cidda waddada kale qaadaana dib u dhac waa gaadhaysaa idan nolosha dhammaanteed ilaahay kitaabkiisa wuxuu kaga warramayaa inuu qaab u jaangooyey oo ay tahay bini aadamku inuu raaco mas'aladan fahamkeeda maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya bay culammadu yidhahdaan laba shay siiba kow coincidence waxaa la yidhahdaa dunidan kama jiro musaadafaat ma jirto ee waxaa jira waayo musaadafaadku nidaam ma abuuraan system musaadafa iyo systemku coincidenceka iyo systemku waa laba waxa isu cagsiya kownkan dhammaantiina nidaam buu u dhisan yihi system buu u dhisan yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay nolosha bini aadamkuna waa la mid idan coincidence dunidan kama jiro coincidence af soomaali muxuu noqonayaa isku beeganto waxuun isku beegmay uun oo mar la arko laakiin aan ahayn wax nidaam iyo qorshow ka dambeeyo haddaynu eegno nidaamka ilaahay u dejiyeyna althabaat walitiraad washumuul ayaa ka asala bay dhahaan sugnaanshiiyo iyo cid walba inuu nidaamkaasi xukumo ama gaal ahaw ama muslim ahaw ama waxa doonta ahaw ama material ahaw qaanuunka ilaahay u dejiyey inuu marayo barashadiisuna inay suurtagal tahay amhilada malaa fudud oo dadku wax ku fahmaan maalan inta badan qawaaniinta sayniska dadku yaqaaneen maalan ilaahay wuxuu dejiyey oxygen iyo hydrogen marka la isku daro inuu soo baxo maxay biyo inay soo baxaan haddii beri hore la isku daro iyo haddii beri dambe la isku daro iyo haddii zamanka hadda jooga la isku daro mar kastoo aad labadaa isu geyso resultku muxuu yahay
biyo miyaad acid sugaysaa inay soo baxdo may waa qaanuun haabit oo mutrada waa qaanuun laynoogu talagalay inaynu daraasayno oo haddaynu garanno inaynu isticmaali karno haddii maalin marka la isku daro yani biyuhu maalan temperaturekeenna caadiga ah iyo pressureka caadiga ah meeshan aynu ku noolnay waxaa laga yaabaa 100 degree bay ku kululaadaan sacankaa maaha 100 degree bay vibration ku gaadhaan ka warran haddii maalin ay 40 ku kululaan lahaayeen maalinna 60 cilmi ma jireen dee soo maaha no science at all waayo wixii waddo loo raaco ma leh markuu yeeshay nidaam loo raaco ayuu noqday cilmi la baran karo wax inta la barto hadhow la tijaabin karo la isticmaali karo sunankaa cid kasta oo raacda ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu natiijada gaadhayo dawaahirta ama muuqaalada dunida ka kor muuqda waa laga saadaalin karaa waxay noqon karaan baa la yidhaahdaa haddaad fahamto sunnada uu raacayo qaacidada ilaahay u dejiyey ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa yadilmu rabbuka axada cidna ilaahay ma dulmiyo qaacidada guusha ciddii raacda waa guulaysanaysaa qaacidada guuldarrada ciddii raacdaana waa guuldarraysanaysaa idan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qawaaciddaasi buu si fiican ugaga warramaya qawaacidda haddaynu daraasayno waxaynu garan karnaa xaggaynu u soconnaa waxaynu garan karnaa takhyiir baynu raadinaynaa isbeddel baynu doonaynaa halkuu ka bilaabmaa isbeddelku sidee isbeddel loo sameeyaa waxaynu garan karnaa waddada aynu maanta joogno haddaynu sidan ahaano aynan isbeddel samaynin matalan waxaynu ka warramaynaa carruur baa inaga luntay carruur baa gaala qaadatay carruur baa caynka ku dhacday sistamkaynu u noolnahay haddaynu ku wadno uun sidaynu hadda nahay natiijadu waa macruuf jiil ama laba jiil kadib inna kuwan bay ku milmi inna drug dealers iyo xabsiyaday noqon dadkan waaweynina wuu dhammaan doonaa uun waa la garan karaa waa laga tanabu'i karaa waa laga warrami karaa xaggaynu u soconnaa marka haddii aynu garanno qawaacidda bini aadamka maamushaa siday tahay iyo innagu qaabka aynu u wadno haddaynu garan karno waxaan kale oo sunnada daraasadeeda aan ka fahmi karnaa wuxuu siduu u socdo haddaad fahamto waxbaad isbeddel samayn kartaa isbeddellada ayaad samayn kartaa haddaba waxaa isweydiinta leh hadday noloshani nidaam ilaahay u dejiyey ka kownigaa hadday tahay nidaam baa loo dejiyey qawaaniintan aynu baranee physics iyo chemistry iyo waxa kane waa maxay waa fahmun lima yajri waxa socda baynu isku daynay in la garto siduu waxaasi u shaqaynayo markaynu fahamnayna inaynu nolosha uga faa'iidaysanno oo inana wax isku dardari karno technologygu markaa wax la isku walaaqi karo oo wax la soo saari karay keentay waxaa la mid a qawaacidda bini aadamka iyo bulshooyinka maxaa dumiya maxaa hagaajiya maxaa haddii la qaato bulshadu ay hore u soconaysaa maxaa haddii la qaato bulshadu ay dib u dhacaysaa ama gaal ahw ama muslim ahwn haddaad qawaaciddaa raacdo na horumarka waad gaadhaysaa noociyaadkiisa waad markaa u socoto haddaba waxaynu u baahan nahay daraasa waxbarasho qur-aanka ilaahay wuxuu inagu leeyahy afalam yasiiruu fi اlardi fatakuna lahum quluub yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha fainaha laa tacma absaar walakin tacma alquluub alatii fi الsuduur ilahay wuxuu leeyahy dhulka miyaanay soconin afalam yasiiruu fi lard dhulka miyaanay soconin dabeetana qalbi wax weeleeyo caqli leh miyaanay lahayn dheg wax maqasho miyaanay lahayn indhaha lama beele eh qulubtaa la beelaa baa ilaahay leeyahy macnaheedu waa maxay waxaa layna leeyahy siruu fi lard bini aadamka inagu gumaynan horeynay taariikh badan oo aadana baa soo martay ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa aadamkii lagu bilaabay dadka ilaa iyo jiilal badan oo taariikhda bini aadamka kala nooca soo maray qoomkii nebi nuux leh kii nebi huud leh kii nebi saalix leh kii ilaahay wuxuu kaga warramayaa qur-aanka dhan oo inooga warramayo maxaa laynoogaga warramayaa qur-aanku markuu qiso ka warrama wuxuu odhanayaa faactabiruu yaa uli labsaar ku cibro qaata ku cibro qaadashadu waa maxay waxa weeyaan if you go that way natiijada heleen baad helaysaa
waddadii yahuudi martay haddaad marto natiijadii ay heleen baad helaysaa. waddadii fircoon maray haddaad marto natiijadii uu helay baad helaysaa. sidaa awgeed baa ilaahay markuu waxa ka warramay waxaa la yidhi ku cibro qaata, ku qiyaas qaata, yani weeyaan cibro qaadashadu. ama ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun. qisaskan uga warran baa ilaahay leeyahy waxay mudan yihiin inay fakeraan. idan qur-aanka waxaasoo qisaa waxay ugu soo aroortay inaynu daraasayno garanno maxaa dumiyey umamkan, maxay u baaba'een, maxay u dhismeen, maxay waddadan u mareen, inxiraafka nooca kani muxuu ugu dhacay. haddaynu si fiican qur-aanka u garanno markaasoo u baranno waxaynu garan karnaa waddada la mari karo iyo waddada aan la mari karin. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war bal taariikhdii idinka idinku horreysay bini aadamka dul socda. aayadda labaad ilaahay wuxuu leeyahy qul siiruu fi lardi. tii hore maxay ahayd afalam yasiiruu fi lardi. haddana maxaa la leeyahy qul dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy siiruu fi lardi dhulka socda oo fanduruu eega kayfa bada'a alkhalq sida ilaahay abuurka u bilaabay. uma yunshi'u allahu nash'ata alaakhira. kownkan daraaseeya baa ilaahay leeyo sidee baa ilaahay u dhisay, see buu u dhismay, buurtani say u samaysantay, dhulkani suu saxaaro u noqday, webigani suu dilaacay, baddani say u samaysantay. siiruu fi lard, war dhulka socda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo fanduruu kayfa bada'a alkhalq sida ilaahay u abuuray ee u dhismay bartaba layna leeyahy. kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahy uma yunshi'u nash'ata alaakhira ina allaha calaa kulli shayin qadiir. ta dambena saasun baa ilaahay u abuurayaa, nolosha dambe aakhirana sidan baa loo abuurayaa baa la leeyahy. idan hadday tahay qawaacidda bini aadamka ee ijtimaaciga ah ee xadaaraadka iyo umamka iyo dunida iyo dadka noolaha iyo waxa horumarkiisa ku saabsan qur-aanku uu ka warramaya waxa la yidhi daraaseeya, dhulka socdoo barta. hadday tahay kownkan materialka ah ee cadceedan iyo dayaxan iyo baddan iyo buurtan iyo waxaan war socda oo barta baa la yidhi, baadha garta saa wuxu socdaa. maxaa laga faa'iidaya markaa? waxaynu ka faa'iidaynaynaa inaynu fahamno ways ama sunan ama dariiqooyin ama jid ama qaabab cadaalad ku samaysan oo laa tuxaabi axada, qofna aan u eexanin, ee qof kasta oo mara uu natiijadeeda gaadhaya. in allaha laa yadlimu annaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun. in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولله عندنا ما ظلمية با إلهي لا يددك يجا نفتوض ظلمية سيدا كسو جنتهين إلهي وحبك ببدل يينا يدكو نفتي نسبة شان موياني هذا برادة كشرتان إلهي إذا كما قوبا يبا ليدنا يدكو سكا قبطان موياني. إذن هذا حما كشرته أما بابا كشرته waddada lagu horumaro haddaad raacdana waad badbaadi, haddaad uun iyada haysatana waad ku jiri. haddaad nimco haysato iyo badhaadhana waddaday ku qubato haddaad martana way kaa daadan, haddaad tooskaaga u haysatana way kuu ziyaadi ama way kuu joogi doontaa. idan ilaahay wuxuu leeyahay cid ma dulmiyo, cadaalad bay sunnadani ku samaysantahy, waxay ku salaysantahay caamnimo iyo habaat. waxaynu doonayna maaha imanka dunida muslimka oo dhami oo gubanaysa. waxaynu leenahay maxaa isbeddel u dhici waayo? isbeddelku xaguu ka imanaya? waxaad doonaysaa mucjizaadka ambiyada inaad hesho, xaguu isbeddelku ka imanaya? wuu dhulkii uu gubanaya, soomaali waa baaba'aysa, caynkana waa baaba. dadka badh baa waxay dhahdaa gaaladayna laysay. war weligeedba gaal iyo muslim dunida waa wada joogeen, maa walbaa cid dhistaa jirtay. dunidu weligeedba challenge bay ahayd, cid waliba waa loolamaysay. yaa wax bedeli jiray? dadku iyagaa naftooda bedeli jiray, iyagaa dariiqa isbeddelka raaci jiray. si awgeed baa ilaahay saxaabadii nebi maxamed iyadoo lala hadlaya waxaa lagu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab. idinka yadidiiladiinana maaha, ahlu kitaabka yadidiiladoodana maaha baa ilaahay yidhi, ee man yacmal suu'an yujza bih. war ninkii waddada xun mara waa abaalkeedu helayaa baa ilaahay leeyahy. nasaara iyo kiristanna waxay jecel yihiin dunidu maaha baa ilaahay leeyahy, idinkuna waxaad jeceshiin maaha. ee man yacmal suu'an waa dhaqan
iyo waxqabad iyo bini aadamku wuxuu samaysto man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi ninkii xuma sameeya ee waddada halaagga isagu orda waa lagu abaalmarinayaa baa ilaahay leeyay walaa yajid lahu min duuni illaahi waliyan walaa nasiira ilaahay sokadiisana cid u gargaarta heli maaya baa ilaahay yidhi ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نبي الله محمد با إلهي صادري أنبياء محل الله صادري إن الدنيا ده بدلان إن الدنيا ده وهر سادان اسبدل لكن أنبياء مركا يمادان بدتكم يسكر راعيا مايا بلشوين كي الدنيا ده شوغوي تشالنج كريني يا أنبياء ده تشالنج بلغلو هوريماني ولا ديدي دبتنا إلهي النبي محمد بالله هدليا وحكولي سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا بإلهي وضضني ووضضي أي مرين كو رسوشا هيا ديك كاهر ريي بإلهي أدنا عدي كو بدالي ميسو إن التشالنج كريسات دتكنو عين كان لور نغما ووضضي الرسوشا هربا مرتي بإلهي لي ولا تجد لسنتنا تحويلا بإلهي سنة أما طريقة عسب سهل ما يسداد مرتد آيات كلا إلهي وحلي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ووضد أي مرين كوي أديك كاهو الري اسبدل لما تشرب إلهي لي آيات كلا مركا وحينات المامية دي نبي محمد ليري اسبدل هلي ما يسدا وضد آغات قالوا يتحامى يا مر from zero ka bilow keli isagoo abuu bilaabay cidna la socon qof baa u islaamay laba u islaamtay saddex baa u islaamtay sidaa noloshu caadiga ay martaa buu maray waa challenge gareeyey waa la eriyaday waa laga saaray waddankiisii waa laga daba tegey waa lala dagaalamay wuu diriray waa guulaystay waa la jebiyey wuu jebiyey ilaahay uu ka soo gaadhay natiijadii kama dambaystahay waa challenge gareeyey dan result ku helay ilaahayna wuxuu leeyahay waa wadada un kuwii kaa horreeyba tay mareen hada طريق ayaa ah kii ay mareen dadkii adiga kaa horreeyay taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay waxa isu eeg xukum isu eeg buu siiyaa waxa kala gedisanna xukum kala gedisan bay leeyihin wadada dib u markaan maraya oo ilaahay baan ka rabaa inuu horumari siiyo soo heli maysid wadada horumarkaan marayaayo waan jabayaa soo heli maysid kaad marto ayaa abaalmarkuna noqonaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa labada waxa kala nooca ilaahay ma simo afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin baa ilaahay yidhi dadka ilaahay u hoggaansama miyaan kalama degaynaa kuwa mujrimka yacni laba wado kala nooca bay hayaan baa la tilmaamaya haddaba ayuha alaxiba waxaynu leenahay haddii sunnadu ay caynkaa tahay oo qisaskii dadkii inaga horreeyey ilaahay ina leeyahay ku cibro qaata saynu isbeddel u samayn karaynaa sunankaasaynu u fahmi karaynaa weyska ama sunanka ama jidadka ama dariiqooyinka ama qaababka ama xeerka ilaahay dejiyey waxay culammadu yidhahan waa laba xeer xeer waxaa la yidhaahdaa asunna alkhaariqa xeerna waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen asunna aljaariya xeer waxaa la yidhahdaa sunna alkhaariqo ilaahay ma xukumo sunankan isaga awooddiisu way ka ballaadhantay in allaha calaa kulli shayin qadiir kownkan iyo qawaaninta taalla innagaa laynoo dejiyay inay xukumaan laakiin rabu samaawaati walard isagaaba dejiyey qaanuunkan markuu doonana wuu dumin karaa markuu doona waa dhaafi karaa rabbi subxaana wa tacaala idan waa sunna khaariqa innaga sunanka khaariqa waxaa laynaga tusaa maalan mucjisaadka ambiyada mucjisadu waa sunna khaariqa waa qaanuunkii caadiga ahay oo la dumiyey maalan dayuxu nebi maxamed baa loo kala jeexay idan waa sunna khaariqa qawaaniinta naqaano fiskiska ama waxa kanaynu naqaano wuu khilaafsan tahay ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi bad ku yimi oo maxay la yidhi usha ku dhufo uli inay bad kala jeexdaa maantaba haddaad ku garaacdo dee bad ku dilaaci mayso waa sunna khaariqa yacni ilaahay wuxuu ina barayaa awooddiisa wuxuu ina barayaa inaan isaga sunankani xukumin in allaha calaa kulli shayin qadiir inuu yahay wuxuu ina barayaa
adilla buu soo raacinaya inu ku rumaysano rusushiisa oo daliil bay u tahay rasuulkan mucjisa in ilaahay subxaanahu wa tacaala khaariqa soo siiyey waxaa la mida bay yidhaahdaan min bacdi aw min waraa'i alambiyaa awliyada karaamaadka ilaahay siiyey masalan qur-aanku haweeney buu ka warramaya karaamo badnayd oo maryamo la yidhaahdo maryan waa gabadha qura qur-aanka magaceedu ku soo arooray waxaana filayaa dhowr iyo 20 jeer inay gaadhiso inta magaceedu qur-aanku uu ku yaallo gabadh kaloo qur-aanku magaceedu ku yaalla ma jiro kuwa kale imra'atu fircawn iyo imra'atu kada iyo saasaa ugu qoran imra'atu nuux iyo imra'atu gaal iyo muslim waa ku soo arooreen laakiin waxa ilaahay magaca dhabay xataa hooyadeed imra'atu ali cimraan waxa ilaahay magac dhabay oo dumar ah waxaa ku soo aroortay qofkaa dumaree maryamo la yidhaahdo oo ilaahay ku tilmaamayo sidiiqa inay ahayd wa kaanat ummuhu sidiiqa waxaa lagu sifaynayaa oo qur-aanku inooga warramaya karaamaadkeedii wax ka mid ah waxaa laynoo sheegay iyadoo iska tukanaysa inay raashin heli jirtay oo nebi zakariya intuu soo galay uu weydiiyey xaggee aad ka keentay ay ugu jawaabtay in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxaa qur-aanku ka warramaya iyadoo umul ah in la yidhi geed timireed ruxrux geedka timirtu ma aha geed ruxrux wax kaga soo dhacaan timirta saa loo guro soo ma taqaaniin ninbaa xadhka loogu xidhayo cirka koro oo dabeetana geedka ka soo guro oo timir geed intaasaa la yidhaahdo midho ka soo daataan timiri maaha iyadoo umul ah oo dumarku markay u jilicsanaay ahaayeen ayaa la yidhi wahuzi ilayka bijidci nakhlati tusaaqit calayka rutaban janiya geedkan timirta adigu taataabo ruxrux timir baa ka soo daadanaysa rutaba baa kuu soo dhacaye idan waa min baabi alkaraama waa ilaahay baa karaameeyey iyadoo aan nin arag baa la yidhi wiil baa lagu siinaya iyadoo aan nin baa arag ayaa ilahay yidhi wiil baa lagu siinaya oo nebi ciise ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waa min baabi alkaraama idan waxaynu leenahay ambiyada mucjisaadka la siiyey waa sunanka khaariqa ah masalan waxaynu noqonaa dabku inuu wax gubo socankaa maaha qur-aanku wuxuu inooga warramaya nebi inta dab lagu riday ilaahay ku yidhi maxay yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dab yahow beraf u noqo berafkuna wax buu dilaa laakiin waa salaaman baa la yidhi beraf wax nabadgeliya qabow wax nabadgeliya noqo nebi ibraahim isagoo blood and flush ah isagoo jiidho inala mid ah oo aan wax antifirena sidan waxna ku xidhnayn ayaa dab lagu riday oo waliba mufasiriintu maxay dhahaan dabka lagu ridayey og inta la shiday manjaniiq loogu rido dab aan loo dhowaan karin xataa sida madfaca lagu soo ganay oo lagu dhex tuuray ilaahay wuxuu ku yidhi yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim qur-aanku mucjisaad tiro badan oo ambiyadu lahayd buu ka warramaya iyadoo reer banu israa'iil harraadeen oo nebi muuse ay yidhaahdeenna waraabi biyaynu doonaynaa lamaba odhan cirka gacmaa u taagoo daruur baa imanaysee dhagax agtiisuunbaa la yidhi usha ku dhufo 12 ilood baa ka burqanaye ul dhagax lagu dhufto biyo ka soo burqadaan sunnada caadiga maaha idan haadihi sunan alkhaariqa waa sunno ilaahay inugu barayo awooddiisa mar labaadna lagu caddaynayo dadkan ilaahay doortay oo rususha tan mucjiso u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadu biyo u baahdeen weyso dabeetana weelkeena buu yidhi waa la keenay intuu gacanta geliyo ku duceeyey biyuunba gacantiisa alla ka burqiyey dabeetana dad 70-80 ninaba ka weysaystay gacan bini aadam inay biyo ka burqadaan oo xataa hadday dee biyaba ka soo burqan lahaayeenna 80 qof ama 70 qof waxay ku weysaystaan inaanay ka soo burqanaynin gacan caadiya waa macruuf waa min baabi maxay min baabi almucjisaat walkaraamaat haddaba innaga laynama odhan sunnada khaariqa la dhaqmo innaga waxaa layna amray assunan aljaariya waxa la yidhaha inaynu la dhaqanno sunnada caadiga sunnada dareertay sunnada dareertay waa maxay waxay culammadu yidhahaan sunnada dareertay waa 2 nooc
midi waa mid materialka ku saabsan umuur abiica najerka caadiga ah oo maalan ilaahay qaab buu u dhigay habeenkii iyo maalintu inuu isu weydaartaan qaab baa loo dhigay cadceeddani inay u socoto qaab baa loo dhigay meerayaasha cadceedda ku wareegaya inay u socdaan qaab baa loo dhigay dayaxu u socdo waa sunan muxadada oo hadday jidkaa ka baxaan dunidu way baaba'aysaa ilaahay baa u dejiyey qaanuunkaasi inay ku dhaqanto oo ilaahay wuxuu ina leeyahay awalam yarow kayfa yubdi'u llaahu alkhalq uma yuciidu war dadku miyaanay arkaynin sidan dunida u bilaabay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul suuruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalq الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بل عركن ايغا با إلهي لي دولكن يو waxan sa Ilaahay u abuuray miya wax kala dheerida aragtaan maanta culimada sayniska maxay yiraahdaan waxay sheegaan waxay u bixiyeen fine tuning waa maxay waxay leeyihiin wax kastaaba mostly sida uu yahay haddii bidix iyo midig midun looga dhaqaajiyo ama ziyaado loo dhaqaajiyo ama nuqsaan loo dhaqaajiyo noloshu ma jiraysay leeyihin anything waxa laaliya waxaa qawaaniin gravity leh ee forces leh ee waxaa doonto sheeg waxay leeyihiin isbeddel haddii lagu sameeyo alxayaat adhakiya the intelligent life ma jirayso dabeetana tusaalayaal bay bixiyaan ciiddaa ka badan ilaahay waxay yidhahdaan waa irbad saaran annuqta alxarija yani raadiyoga soomaalida markaad baarayso meel baa jira fine tuning aad saarto haddaad xagga uga yara tashuush baa ku furmaya ama qeynaysa haddaad xagga uga yara qaadaan halkaasumay sax ku tahay halkaa unbaad ku heli kartaa BBC ama waxaa ku heli kartaa addunya kullaha point bay saarantahay bay leeyihin that point hadday xagga dheeraadka uga dhaqaaqdana noloshu jiri mayso hadday xagga kale uga dhaqaaqdana jiri mayso yaa sheegaya asxaabkan physics-ka ka warramaya waxa kan more than 20 constants bay ka warramayaan mid kastoo isbeddel lagu sameeyo dunidu baaba'ayso ama aanay noloshu jiraynin markay ka warramaan big bankoodii iyo waxoodoo dhan wax badan bay tilmaamayaan ay leeyihin hadduu intaa ka dheerayn lama ka gaabin lama noloshu ma jirteen idan ilaahay wuxuu ina leeyahy warbar dunidana wax kala dheeraada miyaa ku aragtaan everything baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa wax la xisaabiyo meel loogu talagalay leh farjic ilbasar hal taraa min futuur baa ilaahay leeyahy ku celceliya balisha inaad godaloola heshaan laa takuunu abdac mima hiya bay yidhaha siday hadda tay si ay kaga qurux badan tahay lama heleen siday hadda tahay ee u dhisan tahay ee ilaahay u qaabeeyey si ay kaga qurux badan tahay lama hayo marka coincidencena ma jiro wax musaadafa u dhacayna ma jiro wax iska yimina ma jiro wax time ku sameeyeyna ma jiro taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha ilaahay wuxuu ina leeyahay barta oo haddaad barataan kownkan sidaan u dhisay aqoonta sayniska la sheegaya waa maxay saynisku muxuu yihi waxay dhahdaan saynisku waa waxa jira siduu u shaqaynayo la fahmo technologyguna waa maxay waxay dhahdeen waxaa markaad fahamto waa taqliidu abiica inaad najerku siduu shimbirtaasi say u duusho in dayaaradda loo kicin karo taa istaagani say isu taagteen helicopterka loo taag waa ishu say wax u aragto in telescope loo sameeyo microscope loo sameeyo waxa weyn in la arki karo waxa yar in la arki karo waa just nature-ka ishu u shaqaynaysay marka la fahmo lenseska isha ku jira say u shaqaynaysay marka la gartay ayaa waxa la gartay isha in la dheerayn karo oo in badan la arki karo ama in la yarayn karo in yaroo aanay ishu qaban karin hoos loo arki karo idan nolosha dhammaanteed bay leeyihin waxa aqoonta lagu sheegayaa waxa weeyaan waa najerka sida alla wax u abuuray say u shaqaynaysa inaad fahamto after thatna technologygu waa inaad taqliidiso sidii oo kale aadna inaad wax isugu dardarto si uu kuugu hagaago waayatun lahum alleylu naslakhu minhu nahaara faidaa hum mudlimuun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون waxaasoo dhami waa meere
إلهي وحكو تلمامي تعبير في فلك أوربت أي يصبحون ضبالنا ينبا إلهي وحتاجني بدوني ده مجران بإلهي everything هو الصعدة تسادمنا مجرو وحسكون عينا مجران وهو لو سيدا الله قلت لك له الصعدة كاسي واسونن ككوني قاو هدينو دراسينو وحي كان صنيسا نرشو سيدا إنو هرو مرين لهينو كبرانو دان كيدا ماتيريالكا مدنا واسونن ككوصابسن نفت بنا آدم كأي وحي لها المعنى كوصابسن ظلمي عدالة حرية هرمركا تضنمدا دقنكا عقيدة عبادة أوامرت إله ولا الراعو نهي يقول وحاسي وحوالبا ين النتيجة إليه كان وسنن الحياة وسنة إلهي النبي محمد كله سنة من قد أرسلنا من قبلك وجدك أي مرة كوي أديك كاسو الرئي اسبدل له لميسد ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا والسنة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فهل ينظرون إلى سنة الأولين دول بقى إلهي كورمي دبتنا إلهي وحلي ميي ددكن سوغيان sunnadii kuwii iyaga ka horreysay mooyaane waddadii kuwii iyaga ka horreeyey mareen mooyaane ma wax kale sugayaan baa ilaahay leeyahy falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila idan caasiga iyo mutiica mu'minka iyo kaafirka sunna u taalla horumarka iyo dib u dhaca sunna u taalla dulmiga iyo cadaaladda sunna u taalla xorriyadda iyo isticbaadka sunna u taalla haddaad sunanka dadka la halaagaya martana waa lagu halaagi haddaad sunanka dadka guulaysanaya martana waad guulaysan darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay ilaahay kitaab qur'aan uu inoo soo dejiyo oo waxaasi uu ku bayaaninayo kitaabkaasi waxa uu ka warramayaa hadday nolosha adduun tahay sida loo horumaro waxa uu ka warramayaa kitaabkaasi nolosha bini aadamku hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo nolosha bini aadamka hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo wuxuu ka warramayaa kitaabkaasi inxiraafaadkii bini aadamku galay maalan waxaa la yidhahaa fii suurati albaqara aadam iyo wixii ku dhacay baa ilaahay ka warramay kadib baa waxaa laga warramayaa aadam qof buu hayay jamaaco iyo waxa ku dhacaysa jamaacada sidaa ilaahay ula dhaqmayo reer banu israa'iil baa marka qisada aadam la dhaafaba laga warramaya waxay yidhaahdaan fii suurati albaqara 286 aayadood weeyaan 110 aayadood baa yahuud ka warramaya reer banu israa'iil ka warramaya qisadoodii maxaa laga warramayaa taariikh dheer oo ay leeyihiin waxay qalqallooc soo mareen iyo waxay wanaag mareenba waxaa laga warramayaa mar iyagoo madax noqday iyagoo boqorro noqday iyagoo nebiye helay waxaa laga warramayaa iyagoo dulmi sameeyey iyagoo daayara laga dhigay iyadoo la halaagay yacni qisa سيناريو aad u tiro badan oo ah maray jabeen maray guuleysteen maray fiicnaayeen maray xumaayeen maray wanaagsanaayeen ayaa ilaahay ka warramaya dabeetana waxa layna leeyahay ku cibro qaata jamaacaadkiina ka dambeeyaana that's the way saasaa ilaahay kuwan ula dhaqmay reer banu israa'iil dad ahaan haddii la eego soomaalidu maxay dhahaan hebel waa laandheere sooma yidhahdaan iyo hebelkaasi waa haddii dad ahaan la eego waa laandheere waa niman nebiye ku abtirsada nebi ibraahim baa dhalay ibraahim nebi isxaaq buu dhalay nebi isxaaq nebi yacquub buu dhalay nebi yacquub nebi yuusuf buu dhalay haluma waa nimankaa nebiyada ku abtirsada israa'iilkan laguu sheegaya waa nebi yacquub israa'iilku waa nebi yacquub yacquub waa nebi aabihii waa isxaaqa waa nebi aabihii awowgii waa nebi waa nimankaa nebiyada ku abtirsada laakiin ilaahay wuxuu leeyahy maca nebiyada ay ku abtirsadeen nebiyaa dhalay laguma xisaabina waddaday mareen baan ku xisaabiyey baa ilaahay leeyahy markay fiicnaadeenna waa guuleeyey oo taaluut iyo iyagoo ciidamo jabinaya iyo nebi daawud u dhashay iyo waxbaa ilaahay ka warramaya markay fiicnaadeen way hagaageen markay xumaadeenna waa lumeen baa ilaahay leeyahy waa la baabi'ey marka darsigayga wuxuu ku kooban yahay hal kelimo ah oo ah qur-aanka markaynu akhrisanayna aynu nadro kale ku celino aynu dib u fahamno
وإنه قرنه وحني وأمثلة وتصالي لإلهينا السينيو هدو كون كان يسيدو لسان يهينا إلهي وحولي ساسانو لسان اسكود ضيانا برطان مركا برطاننا وكفى إيدين كرتان all sciences وكون كانوا لفهمي هداي تايتا نولش بنا آدم كان إلهي وحولي جيد كاسان ودجيي هداد دبدا قادنا جهنمو غشا تا هداد قادا جنة غشا تا هداد قادو عزي أدوم بادشا تا هداد قادو وهاد شابيسا ولبا قصة كستنا تسالة لينغسي مركا كوا شبي كوا غولستي كوا لبابية كوا داير لغا دغه كوا عين كان بشر كي دنيا سو مرودن با لا بنت لغليا رب السماوات وكاغا ورمي كله واتا وحي كسو بخاي يا اي طريق تريد ادو هدوا ادو جيدكا دونيسا جيدكوا كاسه كيبا دونيسا اصل كنا وينينو كان كولا دقنا وسنة تنبا إلهينا اللي بدل ما يوينو تنكو دقنا السنة الخارقة ولا الدعاء وقولا ينقى سوق شيء نقى انت بدل دعاء الله كأقبل قدرك وحكا بدش لكن ده الدعاء هو أفراد يكن دان انت اسكا فارستان وان دعاء نو يسبدل يسا ماكو هاي نقراك مركا كلمة ده waxay ku koobantay haddaynu ubadkeennan iyo dadkeennan iyo waxaan u fakarayno waa inaynu marraa jidkay ku badbaadi lahaayeen oo ugu horreeya inaynu isu tagno oo ku xigo inaynu wax qabsanno inaynan cid kale tamaniyin inay noo maqan tahay wadaad baa kuu maqanaya carab baa soo soo waxaa intaynu ka baxno inaynu ku xisaabtanno warsaynu u dhowran karnaa waxeenna hadday waddankeennii tahay mujtamaca duwaligaana soo gaadhaya iyo dadka dunida ku noolba dowlada noo samaynaya waxaas waa sheeko dad wax u taraa ma jira qofka bini aadamka waa ku yara hinji karaa ama wax yar buu ku siin karaa laakiin it's up to you soomaalida waxay ku maamaadaa ruqay ninkii lahaa dabada hayaa ma kacda bay dhahaan ruqayda soo ma taqaaniin neef geeloo gaboobay oo fadhiya oo ninkii lahaa dabada sii hayo dhulka ku xejinaya dee istaagi mayso awalba way tamar darrayd hadduu kii lahaana dabada sii qabto dee kici mayso تاني سنة ما دون أبدا سوماليا قول كقوليسن ميشا ما انتظرنا هذا ترى سوماليا قول يو هاي سرعة يو سوماليا توصاي كتوسي ميشا وحن بيس بدل كوي من كره هدينو ينقو كل دقائقنا وحيس بدل كوي من كره هدينو ينقو دقائقنا هدي النبي محمد إلهي يري عليه الصلاة والسلام وشتكي كوي كاه الريا مرينا هذا قرمر ما ده سوق ينا الريا وحكوها شمركها إلهي النبي يسوع دورتي بالي السنة من قد أرسلنا من قبلك وكوي هذه كاور ري وضدي مرين تنا ضايسا دي روسعو إذا وحين هو باهنهاي درس كود مي وحكو كوبني ور إلهي الدنيا دوا أبوري وأنا على كل شيء قدير السنة دي سوى برينكرا لكن وحين يقولي سنة الجارية بان دو كل رقمية هذاك هامرتان وإذا كأبال مرنيا هذاك هامرتان وإذا كأبال مرنيا إنه كابين ربنا وبيسوي دين تله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.